السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamay dhamaantiin kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay 10 waxyaabood ee aadan u baahnayn inaad ka walwashid. midka ugu horeysa haddii aan u gudo galo muuqaalka waxay noqonaysaa waxa dadka kale ay ku moodahayaan. dabcan waxa dadka kale ay ku moodahayaan adiga ma kontrooli kartid. qof walbana fikirka uu rabo ayuu ka aaminsanaan karaa. marka kama dhigi kartid qof walba sida adiga aad tahay. waxaad u baahan tahay marka inaad iska ilowdid waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin ama ay ku amaleynayaan. midka labaad waxay noqonaysaa dadka aan danta ka lahayn. sidoo kale uma baahnid inaad ka walwashid dadka adiga aan danta ka lahayn ama aan ku daneyneynin. waxa u baahan tahay inaad iska indhatirtid ayagoo dhan oo aad kaliya aad saartid focuska waxa adiga aad qabanaysid ama nafsadaada in aad focuska aad saartid ayay muhiimad u tahay. midka saddexaad waa waqtiga ka tagay ama waqti ka lumay. uma baahnid inaad ka walwashid. sidoo kale waqtiga hadduu mar uu tago dib uma soo laabto. kaliya meesha markaas ayada aad joogtid horay uga sii soco. waqtiga aad ku lumisid inaad ka walwashid wax ka tagay ama waqtiga ka tagay inaad ka walwashid waxay la mid tahay waqti kale oo hadana ka lumay. marka uma baahnid inaad ka walwashid waqti ka lumay. midka afraad waxay tahay in bulshada aad ku nooshahay ama bay'ada aad ku jirtid inay ku qeexaan waxa ay u arkaan quruxda iyo guusha. saas darteed quruxda ma lahan standard, sidoo kale guushana ma lahan standard. quruxda qof walba waa sidoo uu arko. guushana wax walba oo aad samaysid ayaad guul ka gaari kartaa. hal wax oo la sameeyo oo guul lagu gaaro ma jirto. wax walba oo aad samaysid guul ayaad ka gaari kartaa. sidoo kale quruxdana ma jirto astaan gaar ah oo cadeynaysa quruxda. sidaas darteed uma baahnid marka in bulshada ay ku qeexdo ama ay ku sheegto waxa aad quruxda ay tahay ama quruxda siday u arkaan iyo guusha sidoo kale. taasna waxaad u baahan tahay inaadan ka walwalin. midka shanaad waxay tahay waxyaabaha aadan haysanin inaad ka walwashid uma baahnid. saas darteed kaliya waxaad wax ku qabsataa wixii markaas ayada ah aad haysatid. wixii ka maqanna waad heli doontaa ee markaas ayada ah inaad u fadhidid ama aad wax u burburisid muhiim ma ahan. waxaa kaliya u baahan tahay wixii markaas ayada ah haysatid in aad wax ku qabsatid. midka lixaad dadka sida qaldan u fikiro. waa inaad iskaga fogaataa dadka sida qaldan u fikiro. xal walba oo aad keentid waxay u hayaan dhib ama waxay hordhigayaan caqabad. saas darteed waa inaad naftaada aad ka ilaalisaa dadka sida qaldan u fikiro. waa in aad iska ilaalisaa in aysan ku saameynin fikradooda qaldan. saas darteed iska ilaali dadka sida qaldan u fikira. midka toddobaad wax ka tagay ama waxaad soo dhaaftay uma baahnid inaad ka fikirtid. wax ka tagay oo aad soo dhaaftay dib uma soo laabanayaan. saas darteed wixii ka tagay waa inaad iska dhaaftaa. waxaa jiro hadalheen afka qalaad ah oo la yiraahdo your past doesn't determine your future. wixii aad soo dhaaftay ama noloshaada sidii hore oo ay ahayd ma go'aaminayso mustaqbalkaaga wuxuu noqonayo. tusaale ahaan haddii aad ka soo jeedid background ama qoys faqiir ah ama noloshaada hore haddii ahayd qof danyar haddii aad ahayd mustaqbalkaada kama dhigno inaad faqiir ahaanaysid. dabcan adoo shalay faqiir ahaa ayaad maanta taajir noqon kartaa. midka sideedaad shalaytada ayadana waa wax aad u xun laakiin waa qayb ka mid ah nolosha oo qof walba wuu shalayn karaa. wax uu soo dhaafay ayuu ka shalaynaya. saas darteed kuma fiicna noloshaada inaad ka walwashid ama aad ka fikirtid shalayto inaad gashid oo aad ka shalaysid wax aad soo dhaaftay. wax tagay tigsamaad mala ay Soomaalida dhahdaa. marka waxaad u baahan tahay inaadan ka walwalin wax hore oo ku soo dhaafay oo aadan ka shalaynin. horay uga sii soco. wixii aad samayn kartidna oo isbedel ah waad samayn kartaa ay samee. midka sagaalaad bulshadu waxa ay ka filayso ama bulshada waxa ay ka sugahayaan oo ay ka malaysanayso. wax walba oo aad haysatid ama wax walba oo aad tahay haddii aad ku qanacsan tahay naftaada adiga waxa ay tahay oo aad aqbalsan tahay naftaadan aad ku kalsoon tahay uma baahnid in aad bulshada aad tustid ama bulshada aad ka gadid qofka adiga aad tahay. saas darteed waxaa muhiim ahayn ama aan loo baahnayn inaad ka walwashid waxa bulshada ay ka filayaan ama waxa bulshada ay ka aaminsan yihiin. midka tobanaad oo ugu dambeeya oo ah khalad ka tagay ama khalad ka dhacay xil hore. qof walba bini aadana dabcan khalad uu sameeyaa laakiin khalad ka tagay ama aad soo dhaaftay inaad ka walwashid uma baahnid. khaladka ka dhacay waa inaad khibrad ka qaadataa oo khibradaas ay ku noqotaa mid noloshaada dambe qalad noocaas oo kale ah aadan samaynin mar kale. saas darteedna uma baahnid inaad ka walwashid qalad hore oo ka dhacay. muuqaalka intaas ayuu ku egyahay. aad baa ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad wax ka faa'iiday like saar muuqaalka. wixii fikir iyo fariin aan noo haysidna commentiga hoose noogu reeb. intaan ku kulmayno muuqaalka mid ka xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo.